بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها أهل خير كأه اجعل إني دقيستان كلامك إلهي سبحانه وتعالى، جعلني دقيستان كلامك النبي عليه الصلاة والسلام. سودو هذا بيشكيga waxaan idinkugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa inuu idinku sugo oo kelimada ugu dambayso adduunka aad kaga tegaysaan ilaahay uu ka dhigo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah. dhammaanteen annagii caruurteenaba ilaahay ducadaasa noo aqbalo, aamiin. suurad waxaa jirto dadka laga yaabo badankooda inay ihmaaliyaan, oo ihmaal macnaheedu waxaa loola jeedaa aysan waqti gelin meesha dadka laga yaabo waxyaalo badan waqti inay geliyaan. qofka caqliga badan haddii loo sheego meesha uu degan yahay in laga kaxaynayo muddo kadib ama muddo yar kadib, loona sheego meesha uu degi doono, laakiin meesha dambe uu degi doono oo weligiis aan laga kaxaynayn, caqligu wuxuu keenayaa meeshaas dambe inaad dhismo aad ka samaysato, wax walba oo ku anfacayo aad ku noolaan karto oo dhan meeshaas inaad ka samaysato. waxaa lagu arkaya adoo markasta alaab wato meesha wax u kaxaysanaya, alaabta geynayo oo wax ka dhisanayo, oo shaqaalo maaragtay samaysanayo, oo gurigaas khaaska ah aad dhisanaysid oo wax walba laga helayo. caqliga saas uu keenaya. adduunka inaan ka tegin waana loo sheegay. shalay 2 qof ayaan caasnay anoo qabriga jooga oo labadaas qof dul jooga oo u ducaynayno, salaadii janaasada ku tukanayno. qofaa isoo wacay, sheekh xasan degdegaan kugu baahannahay, masaajidka maad joogtaa? mayaan dhahay masaajidka ma joogay, meel kale aan jooga waa ka fogahay. waxay dhaheen ma kugu imaan karnaa? waxaan dhahay qabrigaan joogaa. markaas waxay dhaheen innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. gabadheenna oo hurdo aan ku ogeyn ma soo kicin, 13 jir waaye, hadday dhimatay. marka usbuucan inta dhimanaysana dhallinyaraa u badan. hal oday ayaa ku jiray, sheekh maxamed macalin, oday la yiraahdo ilaah u naxariisto, intii dhimatana ilaah u wada naxariisto. suurad waxaa jirto aan tafsiirkeeda akhrinaynaa oo tafsiirkii aan waday ka mid ahaa suuratul ikhlaas oo fadaa'isheedaan kasoo sheekeeyey. maanta waxaan kusoo khatimayaa xadiis. waxaa jiro inkastoo xadiiska la yiraahdo waa daciif, laakiin imaam albani wuxuu yiri marka la isku geegeeyo darajatul xasan uu soo gaarsiiyey. fadaa'ishana axaadiista qaarkood oo laga qaadan karaa. xadiiskaasi nabigu wuxuu yiri calayhi salaam asxaabta qofkii akhriya 10 jeer suuratul ikhlaas, macnaha 10 jeer khatima, waxaa loola jeedaa 10 jeer dhameeya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نبي وحيري بنى الله له قصرا في الجنة. قري أو إلهي ورسايو والجنة ورسايو. لقيس الله بدن هذا كو قري إله رسايو إنجنير بني آدم أحمد رسايو. ما أنت ما أكتهي إنجنير ذا أبو قالسا قريه أبو قالسا رسان الدنك عفوا أو حرب لقى هلاي عليه إنجنير كاسي أبو ري عليه مخلوقات كودن أو وح سمين كرا أبو ري الله ساكو رساي وكو طلباتنا قري قاسي أدونك لغو قمت رساي سابتا أدونك ودمانا يا ميل عن دمانينا آخرا لغو رساي وطوانجر آد فريستو آد أحضو آد أخرسو قل هو الله أحد. محاوى معناها سورة دمارك. intaan ka gud macnaha suuradda nabiga markuu u sheegay asxaabtii qofkii 10 jeer akhriyo suuraddan guri jannada loogu dhisaa. markuu dhahay sayidna cumar meesha fadhiyay wuxuu leeyahay yaa rasuulallah, hadday saas tahay anagana intaas waa ka badinaynaa. waayo 10 jeerba haddii hal guri la ii dhisaayo, ani guryo badan aan rabaaye afkayga sheekooyinka kale iyo waxaas inaan ku yareeyo
أنا وبدنا يا أنت سنكسي بدنا يا مركز رسولك حوري الله أكثر وأطيب إلهي أيا بدن معناها إلهي أيا كبدن حلولج إذا إلهي وحو بحنايو وح كبدن وحيستا أنا هذا كمان جر هذا هالجوري الجوري سناي الجوري سايا لواتن هذا لبا جوري الجوري سايا marka ilaahay intaasoo in ka badan ayuu hayaa ilaahay isagaa wanaagsan saas waa macnaha suuradda macnaheeda kooban bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabanaya arraxmaan alla naxariistiisa balaaran oo cid kasta gaaraysa gaali muslim inta adduunka la joogo arraxiim alla naxariistiisa khaas ah waxay khaas ku tahay mu'miniinta maalinta qiyaamaha oo iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala la soo heshiiyey adduunka oo acmaashooda saalixaadka ah faraxa ka batay ilaahay hor imaanayo oo ilaahay u naxariisanayo oo jannada uu geenayo allahaasa arraxiim ah kul waa amar nabiga la amray calayhi salaatu wasalaam sheekadan waxay ku timid gaalaa rasuulka u timid mushrikiin ayaa u timid waxay dhaheen ilaahyadan waxay ka samaysan waa la yaqaanaa dhagxaan iyo ama dhagxaan qaali ha ahaadaan adiga ilaahaaga muxuu ka samaysan yahay markaasaa rasuulka calayhi salaam waxaa kusoo degtay suuraddan ilaaha u jawaabay qul ku dheh marka isagoo dhaha ilaahay subxaana wa tacaala waxba ha u jawaabin anaa u jawaabayo keliya amarkayga qaado qul amraa la siiyey rasuulka sidaan wax u sheeg huwa ilaaha isaga kaa weydiinaysaan allahu ilaah waaye axad oo hal ah 360 ma ahan sida kristanka ay sheegaan 3 ilaahay ma ahan sida kuwa kale ay sheegaan 2 ilaah ma ahan kuwa 2 ilaah aaminsan ayaa jiro intaasoo dhan maaha ilaahay subxaana wa tacaala axad lidaalika culummada waxay dhaheen kelmadan axad sir badan ayaa ku qarsoon that's why suuraddan marka ilaahay wuxuu yahay oo ugu jecel yahay in lagu sifeeyo ilaahay wuxuu yahay waa hal ilaahay awoodda leh keligiisa awood leh keligiisa hal ah keligiisa ilaah ah keligiisa la caabudaya keligiisa wax la weydiisanaya keligiisa la tala saaranaya keligiisa la hoosgalaya isagaa wax walba oo makhluuqaad oo dhan keligiisay hoos yimaadaan kii maaragtay ku faraxsan inuu caabudo iyo kaan ku faraxsanaynba way wada caabudayaan gaalkaa ujeedid xitaa hooskiisa waa ilaahi subxana wa tacala wuxuu waa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi wax walbo ilaahay abuuroo dhan ilaahay subxaana wa tacaala ay tasbiixsanayaan gaalkaasi diidan ilaahay harkiisa hooskiisa ilaahuu tasbiixsanayaa ولكن لا تفقهون تصبيحهم إلهي وحول إذنك ما قرانيسان أنا ما نقانو قابك وتصبيح صنايا لكن إله النوشاي قالك إلهي ديدا هركيسة إله تصبيح صنايا إذا قابا كلين ماذا إلهي واسرته نلاشرنا إنا فهمته لذلك إلهي يا أحد مركع هذا إلهي أتوجيسد إلهي وحده ونقصينايا هو إساق الله إلهي أحد وأمد آياتك حقته الله الصمد الله إلهي الصمد وكي أحلوي دي سناي الصمد حواي الذي يقصد إليه الحوائج مركا دان لا يضحك كي دانت إساقا فليناي وفيناي وحقيسة كلي لغد أمينكا مركا دانا بضانا كاغا حران بني آدم كي مخلوقاتك مركا مخلوقاتك سينات كوري وريك تماها أسبابت إنات قادة ولو باهاية oo ah dantaasi wixii lagu gaari karo adduuna inaad samayso markaa samayso kadib adoon laaluush bixin adoon wax kala samaynin ilaahay markaas albaabkiisa aadaysa maxaad leedahay yaa samad dacdaas akhrinaysaa markaas yaa samad waa xaaji gude ilaahay subxaana wa tacala markaas xaajadaadu gudaya allahu samad lam yalid ilaahay subxaana wa tacaala caruur ma lahan lam yalid waxba ma dhalin waa been in la yiraahdo Jesus ama Ciise waa wiilka Ilaahay waa Cuseyr waa wiilka Ilaahay intii la sheegaba Ilaahay waxba ma dhalinba caruur dhan ma balahado Ciise kuma caruur dhan ma balaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala walam yulad isagana lama dhalin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waayo hadii timaado Ilaahay inuu wax dhalay isagana la dhalay wixii yaa soconay meesha Ilaahay isal dhalay noqonaysa laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu waa keligiis Ilaahay wuu jiray isagaa abuuray wax walba khaaliq waaye anaga waxaan nahay makhluuqaad ilaahana abuuray marka allahu khaaliqu kulli shay wax walbo jiro dhan waxaa rabtaa raadinaysid oo dadka gacantooda ay ku jiraan ama dowladda gacantooda ay ku jiraan
ama hay-ado gacantooda ay ku jiraan oo aad raadinaysid gacanta ilaahay ku jiraan ad waxaa laga rabaa oo keliya albaabka ilaahay inaad garaacdo markaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walam yuulad ilaahay lama dhalin aayadda ugu dambaysa walam yakun uma sugnaanin lahu ilaahay subxaana wa tacaala kufuwan mathiilan axad oo la mid ah axad ilaahay la mid ah adduunka ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala wax aad barbardhigayso adduunka ma jiro awooddiisa keliyuu ku yahay magacyadiisu keliyuu ku yahay sifooyinkiisa keliyuu ku yahay intaas markaad fahamto suuraddaasi oo aad ku celceliso maalintii ilaaha ku jeclaanayo soo marta ilahay inuu ku jeclaado ilaahay qofkuu jeclaado ma dayaco ilaahay cidduu jeclaado ma dhibo haddii imtixaan ilaahay uu kugu rido adoo suuraddan ku celcelinayo imtixaankaas culimmadu waxay u bixiyeen ibtilaa'u rifca imtixaan oo kor lagugu qaadayo waayo ba'ah wax lagugu dhibaayo sababtaa qofka ilaahay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahay maa yafcalu allaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum ilaahay dhibkiina wax uu ku falaayo ma lahan haddii ilaahay aad ku shukrisaan shukrinta ilaahay waxa waaye ilaahay inaad ammaanto wuxuu yahay aad ku ammaanto suuradda fiiri inta magac ilaahay ku jirto allah الرحمن الرحيم أحد الأحد الصمد انت صدن ومقاعد إلهي سبحانه وتعالى شن أي لو سوروري نين كما أصحاب النبي عليه السلام سفر الرسول عليه السلام ودري سجاه جاميناي من كاسه جامي دين انتو سفر كوه جاميناي يردن مركي صلاة وتجينا سورة كستو أخريو وحو قدام بيسينا سورة الإخلاص ويابن سؤال مويدين مركز سفر لغا سو نقدي النبي عليه الصلاه والسلام ويمادن يا رسول الله من كان نومنا شيغن سوره كاستو مركو اخري صلاه مركو لا تكناي سوره لباد مركو اخري مركز تو خكو سو ختما الاخلاص محاصر كجرا ارنكاس وحنا رسولكم حويدين ويسن اسد way u tageen way weydiiyeen wuxuu yiri sifaadka ilaahay oo ku jira suurada shan magacyo ilaahay iyo sifooyinkooda ku jira jacayl aan u qabaan ku celceliyaa rasuulku yimaadeen عليه الصلاة والسلام sheekadii u sheegeen nabiga markaas wuxuu yiri ku laabto waxaad tirahdaan fiirin ninkaas darajada uu gaaray jaceelka suurada aad u qabto darteeda adna ilaaha ku jeclaaday marabta ilaahay inuu ku jeclaado suurada ikhlaas akhri rasuulka عليه السلام xadiis kale wuxuu yiri qofkii 3 jeer akhriya suurada ikhlaas waxay lama taasoo quraanka dhan uu akhriyay marka halkan waxa laga fahmayaa wuxuu dhahay thuluth macnaa suuradan ku sheekeynay wuxuu تعدل ثلث القرآن waxay u dhigantaa quraanka saddex markii loo qeybiyo hal meel tafsiirka culimada qaarkood waxa la tafsiirka loo jeeday quraanka saddex qaybood ka hadlaa qawaaniinta lagu dhaqmo ahkaamta laba qisas oo taariikhda dadka in la barto oo lagu cibra qaato iyo saddex aqeedada islaamka marka aqeedada suuradan oo dhan waa suuratul aqiida suuratul tawxiid ilaahana waafajiyo akhrinteeda ku dhaqankeeda waxa loo jeedaa in ilaahay kaliya la hoos galo oo bini aadamka dhan laga xoroobo iyo makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala waa ku dhaqanka suuradda faafinteedana waxa waaye sida oo hadda aad u dhegaysanaysid qof kalaa rabo baahi u qaba inuu u dhegaysto adna inaad faafiso ajraad ka heli qofkaas marka loo dhiso qasri marka loo dhiso jannada adna waa lagu dhisi fiirinta faa'iido ah helaysid intii qofkaas uu sii faafinayo in la mid ah ajirkeedu way kuu socon marka sheer gareynaysa khayrka dadka qaarkood waxay sheer gareeyaan waxyaalo ilaahay uu xarimay heesay sheer gareeyaan musiga sheer gareeyaan waxyaalahaas ilaahay uu xarimay markay sheer gareynayaan dambi suu ugu socdo adna markaad sheer gareyso khayrka khayr ayaa kuu socdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh